أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العاء waxaan doonayaa inaan si yaro kooban u falanqeeyo waxaan oga yiraahdo buuggan ciwaankiisu yahay afgambigii dhicisoobay ee Somaliland Scouts 1960kii waa afgambigii dhicisoobay ee 9kii December 10kii December ka dhacay Somaliland kaas oo saraakiil ka tirsanaa Somaliland Scouts ay ka gadoodeen xaqdarro ay tirsanayeen doonayeen in ay wadankii la oran jiray British Somaliland ee markaa wax ku darsaday Italian Somaliland inay dib u soo celiyaan buuggu wuxuu ka kooban yahay 118 maaha buug sidaa u sii ballaaran waxaana qoray Sayid Axmed Yuusuf Dhegey Sayid Axmed Yuusuf Dhegey waxa weeyaan runtii Sayid Axmed Maxamed Yuusuf loo yaqaan Dhegey baan u jeedaa maaha buuggii ugu horreeyay uu qoro sida buugga ku qoran laakiin waa buuggii ugu horreeyay runtii uu qoray anagu akhriyo waana buug xog badan xambaarsan haddaan wax yar ka idhaahdo sida ku qoran buugga Sayid Axmed wuxuu ka mid yahay dhalintii barbaartay bartameyadii iskuullada yani ku jirta wanjida markaan ay barbaartay bartameyihii 70-nadii ilaa iyo uu dugsiga sare ka dhameeyey bartameyihii 80kii waana ardayda af Soomaali wax ku bartay ilaa dugsiga sare sida ka muuqata qoraalkiisa iyo buuggaba soo ku qoray af Soomaali wax ku bartay ilaa dugsiga sare ku dhamaysay buugaag soo qoray waxaa ka mid ah Somaliland xorriyaddii 60kii iyo xilligii ka horreeyay oo soo baxay 2002 socdaalkii dheeraa 2007 bisadii aan batay 2004 14kii milicsigii dagaalkii dhex maray jabhaddii SNM iyo xukuumaddii Maxamed Bare 2012 waxa uu gudoomiye ka noqday ururka qoraaga Somaliland ee fadhigiisu yahay Sweden oo ka mid yahay runtii halkaa waxa aynu oran karnaa Sayid Axmed Dhegey inaanu ahayn qof ku cusub qoraalka buugaagta taariikhda siyaasadda la xiriira Soomaalida iyo Somaliland iyo sheekooyinka Soomaalidaba runtii marka laga yimaado farta kala duusan ee buugga ku qoran waana si u badan buugaagta Soomaalida lagu qoro waxa weeyaan buuggu wuxuu xambaarsan yahay xog aan hore loo arag xog cusub una isku dayo soo ururiyo xogta qaarkood waa laga yaabaa in meelaha laga maqlay laakiin waa markii ugu horeysay dhacdadan buug lagu qoro intii intaan buuggan qaybiisa waxaan jeclahay halkaa ka idhaahdo in 60 sanadood kadib aynu aragno buug laga qoray dhacdada afgambiga dhicisoobay waxayna tusaysaa sida uu weli qalinkeena curtinka u yahay sida aynu weli xogteena aynaan u kaydin aynaan qoralahaan ugu kaydin aan loo weelayn runtiina aynu aragno iyadoo sheekooyinkii kun wax lagu daray ama kun siyaabood oo kala sheegayay maadaama aanay meel loo tixraaco oo markiiba lagu qoro lahayn runtii buugga wuxuu ka hadlayaa waxaan oran karaa oo kala qaybinaya anigu 3 qaybood marka hore wuxuu ka hadlayaa afgambigii ka hor waa 1950kii ilaa 1960kii kadibna afgambigii iyo siduu u dhicisoobay qaabkii loo soo abaabulay siduu u dhacay iyo siduu u fashilmay uu ka hadlayaa waxaa kaloo si kooban uga hadlayaa dareenkii shicibka runtii qoraagu waxa uu ku bilaabayaa weliba ka afeefanaya inay adag tahay in xoog dhaba la helo waan dhab in xoog dhaba la helo isagoo warays 60 sano kadib iyadoo aan wixii la qorin oo sababo kala duwan baa loo yiraahdee aanay u qornayn runtii taasina waxay keentay in hadallo badan oo istaaf ka soo baxaan xogaha qaar ay isburiyaan lana kala shaandhayo runtii loo baahan yahay dhinac walba laga eego qoraagu wuxuu taabanayaa dareenkii shacabka reer Somaliland markii runtii gobonnimadoonkii waqti gobonnimadoonkii socday shucuurtooda halka gaarsiinay midnimadoonkii Soomaali ra'yigii Soomaali weyn sidii loo socday iyo waxyaabihii wuxuu kaloo si kooban u carabaabayaa shuruudihii ahaa shucuurta dadka ka matali lahaa waxaanu doonaynaa israac bilaa shuruuda in aanu walaaladayada ugu tagno waxaana uu leeyahay waxa laga sii fogaanayay Somaliland wuxuu waxa laga sii fogaanayay habka qabiilka laakiin lama qiyaasi karin waxa ka dambeeyay marka uu maamulka uu Soomaalida gacanta u galo taasi waxay oran karnaa arrimo dhowra oo jiray
ma aqoonteena halkaa gaarsiinay mise cadafadii gobonimo doonka iyo middoonka ayaaba gebigaba fikirkii saliimka ah ee waagaa jiray xoog ku dahadhay waxa uu isticmaalayaa israaci buu ka sheekeynayaa sida laisku raacay iyo in qoladii somaliland runtii iyaga laftigoodu ay halkaa waxay u tegeen waxay wax ku xallin jireen ayaynu buugga ka dareemaynaa in marka cadaalad darra ay cidi dareento inay habka siyaasiga oo bislaadeen hab siyaasadeed ku xallin jireen tusaalena waxa u ah samayntii USP xisbigii la odhan jiray oo markaa uu leeyahay beelihii darafiyadu waxay dareemeen in hogaankii xisbiyaduba ay beesha dhex isku qabeen marka xisbi iyagana kan la tartama ayay sameeyeen oo USP iyagoo wada socda markii xamar tegeen runtii waxay noqotay muddo 10 sanadooda oo uu gacanta UN-ta ku hoos jirtay talyaaniguna uu ka mas-uulahay inuu dowladnimo gaarsiiyo laakiin ay ka muuqatay kala qaybsanaan in iyagiiba la yidhi idina ree hebel baa tiini xaggaa raaca idina ree hebel baa tiini xaggaa raaca oo xitaa saraakiisha ciidamada lagu kala qaybiyo qabyaalad waxaa tusaale usoo qaadanayaa ciidankii booliiska iyo kuwii militariga oo markaa la sameeyey in ay noqotay maxamed abshir hamaan oo loo dhiibay ciidanka booliiska in generaal daauud loo dhiibo ciidankii militariga maadaama maxamed siyaad barre oo ka sarreeyey generaal daauud ay isku hayb noqdeen dusha sare marka la eego maxamed abshir hamaan taasina iyagiina waxay keentay in wax walba qabyaalada loo qaybo marka waxa weeyaan xitaa qabyaalada iyaga lagama qayb gelin xaggii hoose ayay galeen iyadoo guuxaasi bilaabmuu jiro ayay saraakiishii waxay dareemeen sida buug qoran 2 mar baa la dilaacsiiyey saraakiishii Soomaaliya halka kuwii Somaliland ka soo jeeday aan wax dilaac la siin arrintaas waxay keentay inay carab badan ka muujiso iyagii ay dareemaan cadaadin lana dul keenay saraakiil ka timid Soomaaliya oo ay dareemayeen inaanay aqoon ahaanba ka sarreyn laakiin darajada loo soo xidhay oo gaashaanayaal iyagii la dul keenay buug waxa uu kaloo ka hadlayaa markaa kadib carada wixii keenay dhalinyaradan samaysay markaa saraakiishan dhalinyarada oo lagu tilmaami karo runtii inay niman da'yar ahaayeen aanan anigu odhan karo da'doodu lagu qiyaasi karo inay 20 jir ilaa 30 jir waxaysi markaana dee aad moodo waxay ahaayeen 23 sarkaal runtii 13 ka mid way cusbaayeen oo markaasun bay yimaadeen halka 10 kale 3 ka mid ay laba xidig lahaayeen laba xidig la ayaa ugu sarreeyay iyaguna ay isbediyeen inay ka aqoon badan yihiin cid walba oo ay xaq u leeyihiin in la dallacsiiyo maadaama wixii uu gumaysigu kaga tegay ay haystaan ayna runtii ka yimaadeen oo ay si fiican kulliyadihii caalamka ugu sarreeyey ay ka soo baxeen oo ilaa imikana dee lagu tilmaamay kulliyadahaas ingiriiska kuwa ugu sarreeya waxaa kaloo buug ka hadlayaa qabanqaabadii afgembiga sidii degdeg ahay loo qabanqaabiyey waxyaalaha qaar qorshe cad aanu jirin in aanan la wada ogeyn dooda su'aalo la weydiiyo kale xasan kayd ilaahay aan naxariistay oo hogaaminayay in su'aalo la weydiiyey uu yidhi anigaa og iyo inaanay caddayn runtii taasi cidda ay u dhiibi lahaayeen hoggaanka marka ay meesha qabsadaan ma iyagaa gacanta ku hayn lahaa ma siyaasiyiintii bay u yeedhi lahaayeen aaraa kala duwan baa halkaa ka soo baxayso buugga ku qoran oo jeclahay qofka akhriya uu kala soo bixi karo waxa uu kala oo uu daaha ka qaadayaa sarkaal runtii la tuhmayey inuu inqilaabka fashiliyey oo isagu caddaynaya inaanu wax shaqo ku lahayn xasan farax abdulwale xasan mataan oo isagu waxaan ku jiiday qorshe oo aan caddayn jawaabihii xasan keeni siiyey oo aan caddayn wax walba nagu yidhahda anigaa og iyo tii uuna dareemay isagoo aan qoraago runtii aad muddo halkaa inuu yaro dul marayo oo uu leeyahay dhinac uu ka leeyahay saraakiishu waxay isku ixtiraamayeen darajada waana sax laakiin dhinaca kale waxaad mooddaa waxaad ka dhex dareemaysaa qoraalka iyo warbixinta waraysiga uu xasan mataan bixiyey in waxoogaa qabyaalada la dareemay waayo xasan mataan wuxuu ku doodayaa labada sarkaal ee ugu mudnaa in ay qabtaan berbera oo berbera ka soo jeeday waxa ayn laba sarkaal isaga iyo nin la odhan jiray lugooye ilahay naxariiste oo ka kala talinayay markaa sheekh xerooyinkii sheekh iyo cadaadin taasina markay xasan weydiiyeen xasankeedu yidhi ana og iyaguna ay dareemeen in ay
cid walba ka mudan yihiin cid kale u dirayaa qabyaalada dhinaca haddii laga horta runtii 23 sarkaal sida buu ku qoran beelahooda ku qoran ka soo jeedaan haddaad eegto boqolkiiba 47 beesha dhexe ka soo jeeda halka boqolkiiba 60 ay beelaha darafyada ka soo jeedaan saraakiisha inqilaabka sameysay markaa dee ma beesha dhexe ayaa qabyaalada laga dhex dareemay waxa weeyaan waa meelo u baahan in la faahfaahiyo wixii shakiyana laga saaro runtii waayo sayid axmed dhege wuxuu culays ka saarayaa in uu helo xogta wayna adag tahay in 60 sano kadib la helo xogtii dhab tahay nimankii joogay buugga waad ka dhex dareemaysaan isaguna waa caddeynayo oo warbixino kala duwan iska hor imanaya sheegaya waxaa kaloo sheegayaa habkii loo qabtay xariggii iyo maxkamadiisa u dhacday dembiyadii lagu waayey iyo sababihii dadka qaar rumaysnaayeen maxaa dhacay sidee baa dembi loogu waayey makacdoon baa laga baxay yacni waa arrimo u baahan su-aalo badan qoto dheer runtii waan ku ammaanayaa in uu xogtan ku dadaalay in uu bal qofkii koowaad 60 sanadood afkiisa ka helo 60 sanadood kadib waxa weeye nimankii uu ogaa nimankiis in la helo dhammaantood way aragtay inta ka noolay dee waxa weeye ninkii ugu da'yaraa haddii uu maalintaa 20 jir ama 20 jir ahaa maanta waa dhowr 80 jir runtii inuu si wax walba u xusuustaa way adkaanaysaa haddii aan wixii loo qorin oo weelayn waxaad ka dareemaysaa raadraaca uu samaynayo waxa weeyaan qoraallada ugu horeeya taariikhdoodu waa 1997 waana qoraallo xidhiidha oo uu ka soo xiganayo oo siciid allah naxariisto siciid cali giir oo uu ku qoray jamhuuriya yani waa dareemi kartaa 1997 qoraallada la qoray muddaa u dhexaysay laftigooda markaa siciid cali giir oo saraakiisha ka mid ahaa ayaaba xoog badan wayna adag tahay runtii waana la qabaa wayna adag tahay laakiin in la sii amba qaado aan ku raacsanahay inuu bal horta isku dayo buugga isku dayaa innaga bal uu soo bandhigo xog hadhow la saddex tiraaci karo weliba xogta qaarkood iyadoo iska soo horjeeda ayuu meesha keenaya oo buugga ku jira waxaana ka mid ah xogta uu istiraaciyo ambassador caawid xuseen cali ducaale buuggu qoray jaamac maxamed cali buuggu qoray cabdullaahi yuusuf ilaahay isna naxariistay buuggu qoray ayaa intaba iyagoo weliba xooga kala duwan iyo siday u arkayeen xitaa saraakiishii booliisku qaarkood shir ka dhacay maalintii inqilaabka dhowr cisho kadib laleeyahay malaha gacan shisheeyaa ku jirta waana wax la isweydiin karo marka su-aalo badan oo aan laga jawaabin oo u baahan in la dabagalo ay ku jiraan laakiin wuu ku mahadsan yahay sayid axmed dhege horta inuu inoo soo kobo marka markaan intaa kaga baxo buugga oon jeclahay runtii qof walba dee markuu akhristo wax badan ka dhiiban karo casharada laga baran karo yaan anigu isleeyahay waan laga baran karaa iyo xidhiirka ay waktigan aynu joognay la leeyihiin ayaan doonayaa anigu inaan culays ka saaro runtii waxaad moodaa sida aan u arko 60 sanadood kadib in Soomaalidu aanay siyaasadda horumar badan ka samaynin waayo qabyaaladii lagula dhaqmay ee reer Somaliland markii ay 1960kii Soomaaliya tageen weli Muqdisho way taallaa weliba waa la sii casriyeeyey oo halkii ay waagaa ka ahayd laba qolo oo waaweyn oo daarada irin loo kala bixin jiray iminka waxaa la yidhaahdaa waa 4.5 4.5 si kastaba ahaatee ilaa iyo iminka siyaasi Somaliland ka soo jeeda reerka uu doona ahaado weli kursiga ugu sarreeya ku fadhiisan marka dareenkii waagaa ay qabeen reer Somaliland siyaasiyiintoodii iyagoo walaaladood u soo hiloobay ay dareemeen cadaalad darro iyo xaq darro lagu sameeyey saraakiishina ay ka gadoodeen ilaa iminka uu yaala yani markaan leeyahay Somaliland waxa weeyaan British Somaliland reerku doona ahaado weli kursiga ugu sarreeya ugu fadhiisan casharka kale ee ku jiraan arkayno 1950 ilaa 1960 ismaamulkii Soomaaliya la siiyey ee Talyaaniga loo xilsaaray inuu dowladnimada gaarsiiyo runtii waxa mas'uuliyadiisa guud lahaa ururka qaramada midoobay warbixino joogto ah
ayaana la siin jiray mar walba loo gudbin jiray si loo ogaado heerka ay dee marayaan dowladnimadoodii siday ugu soo hiranayaan halka tababarka intay ku jiraan waxaasoo dhan iyo inay hanan karaan maantana weli waxaad aragtaa iyadoo maantana waxaa ka mas-uula qaramada midoobay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u fadhiya soomaaliya ayaa warbixin joogta maanta ka sameeyay golahii ammaanka siiya oo ilaa halkanay soomaaliya maraysaa marka tallaabo noocmeeya ayaa la qaaday horumar noocmeeya la sameeyey waa sababtaan u leeyahay xaggii siyaasadda soomaalidu wax horumare kamay sameyn ta ku xigta waxa weeyaan shantii soomaaliyeed shirkii loogu talagalay shantii soomaaliyeed ee muqdisho ka dhacay 1958 qabanqaabadiisa horta shirkaa waxaa lahaa sida buuggana ku qoran oo Sidi Axmed Dhege leeyahay xisbigii SNL oo ay ka mid ahaayeen in cigaaliyo oo ilaahay naxariista oo shirkoodii xisbiga ee sanadlaha ku qabsaday burco kadibna isweydiiyey war maxaa horta ma lahayaa shan Soomaaliyeed meel ku shirtay shantii Soomaaliyeed marka waxay yiraahdeen bal aynu u tagno Soomaalidii way tageen waxa la qabanqaabiyey inuu shir dhaco sanadka xiga oo 1958 yahay sida uu qoraagu buug ku qoray uu kana soo xigtay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal in markii shirkii ay tageen runtii shirkaasi waxba kama soo dhicin laakiin markii ay tageen waxa ka maqnaa Soomaaliya Somaliland way joogtay Djibouti way joogtay laakiin waxa ka maqnaa qoladii Ethiopia hoostigiisa oo reserve iyo hawd ah iyo NFD waxa soo qaaday waliba wuxuu isticmaalayaa kelmadii isticmaal u leeyahay niman laajiina oo muqdisho joogay baa la yidhi ayaa matalay maantana waxaynu aragnaa Somaliland cidda mar walba muqdisho joogto unbaa la yidhaha Somaliland muqdisho marka maxaa ka soo baxay maxaa tallaabo la qaaday horumar noocyo ayaa laga siyaasada laga gaaray waxaan leeyahay weli runtii waxaad moodaa casharadii maalintaa taagnaa caqabadii taagnaa inay maanta taagan yihiin waana laga yaabaa haddii la qori lahayn wax laga baran lahaa laakiin waxay noqdeen hadal iyo af marka meel loo tixraamay dhinaca Somaliland runtii kala qaybsanaantii siyaasadda qabeeliga ku dhisnayd ee dabayaaqadii kontineeyadii bilaabatay ee dhalisay in beelaha darafyadu ay xisbi gooniye samaystaan xisbigii USP inkastoo ay siyaasad ahaan u samaysteen haddana waxaad moodaa siyaasadda qoraaguna markii hore ammaanayuu lahaa buugku ammaan leeyahay Somaliland siyaasadoodu meel fiican bay waagaa u qarannimay doonayeen in maanta ay dhinaca taban tadawur u samaysay runtii weliba maanta waxaynu aragnaa saddex xisbi oo dastuurka Somaliland ogol yahay reerka hoggaanka saddexda xisbi waa reerka darafyadii cabasha taala waxaan aaminsanahay haddii cabashada wax laga qabto in horumar siyaasadeed iyo bulshada uu keeni karo runtii marka waxaan aragnaa iminka Somaliland iyo Soomaaliyaba dabayaaqadii kontomaadkii caqabadii taallay ilaa maantana intaalo casharka kale ee aan anigu isleeyahay waa lagala bixi karaa meesha waxa weeyaan wax kasta runtii oo degdeg iyo caadifad lagu sameeyo oo aan aqoon qoto dheer lagu jaangoynin waxaa ka dhasha natiijooyinkii tabanna waynu aragnay inqilaabkii oo runtii hadda cisoobo laakiin wuxuu tusay in shicibkii galuusan yihiin saraakiishii wax diidan yihiin haddana si qoto dheer looguma arrintii looma xallin waxaa laga soo qaaduna inama yaryar oo waaya aragnimaan haysay oo boodi ta kale ee runtii muhiima oo arka waxa weeye saraakiishii afgamiga sameeyey ujeedooyinkooda weli si fiican looma fahmin loomana fahansanaa in la baarana way u baahan tahay xoog suganna ilaa imika xogta buuggan ku jirta sida qoraaguna inuu sheegayo qaarkood inay iska hor imanayaan laakiin in sidan lasii baaro weliba waxa uu soo jeedinayaa in qolooyinkii ingiriiska aynala joogo kale ama adduunyadii kale waxay ka qortay laga daba tago xitaa haddii ay jiraan waxyaala sir ahaa oo documents waayo documentiyada 30 sano baa la sii daayaa wuuna carabaabaya leeyahay in laga daba tagaa wanaagsan waana run marka laga reebo runtii caradii ka kacday darajooyinkii ay filayeen oo aan la siinin xiriirka ay la lahaayeen bulshada iyo kalsoonida ay ku qabeen saraakiil xigeenada iyo ciidankii hogaaminayeen runtii su'aalo badan baa ka taagan Cabdilaahi Kongo oo ka soo xiganayo buugga qoraagu wuxuu leeyahay marka aanu kula kulanno
suuqa odayaasha dadka qaar kamid wuxuu war idinkaa wadanka darajo u sitay maxaad waxaan wax uga qaban weydeen runtii cabdullaahi yuusuf iyo jaamac maxamed qaalib waxay qabaan in ay siyaasiyiin ka dambeeyeen ku jireen saraakiishii booliiskana waxay qabaan inaya sida uu buugga lagu qoraa ku carabaabay inba gacan shisheeyo kale waana suurtagal inaanay ka maqnaanin arrintaa waa arrin dhici karta runtii mana aha in la daadafeylolaha ma dhici karto laakiin waa u baahan si la baaro oo si fiican loo baaro sababaha aan ujeedooyinkoodii weli nimankii qalaabkiisay loo ogeyn waxaa ka mid noqon kara runtii waxyaalaha suurtagal ka mid noqon kara waxa weeyaan in aanay jirin qoraallo seenasooy qoraallo iyo waraysiyo waqtigaa laga qaaday oo dhacdadan lagu weeleeyey marka laga reebo waa waraysiyo dhowaan laga qaaday qaar ka mid a inta nool iyo dhowr buug oo dhacdada lagu carabaabay laakiin si fiican aan loogu faalayn si qoto dheer aan looga hadlin weliba aan la faafa'in ta kale u baahan runtii aan aaminsanahay inaan waxba laga ogeyn weli waxa weeye dabeecadihii hogaamineed iyo aqoontii guud ee saraakiishaasi heerkay taagneed waqtigaa oo aan weli faahfaahin waayo hogaamin nooceeya haddii oo inqilaabku ay ku guulaysan lahaayeen hogaamin noocma ayaa laga fili lahaa aqoonteedii xirfadeedii ma lahayn ay waddanka ku hogaamin lahaayeen sidee bay dadka isugu hayn lahaayeen haddiiba xasan faarax mataan oo ahaa ninkii diiday uu dareemay in isagii iyo lugooyi oo magaalada ay ka soo jeedeen aan loo dirin uu dareemay in halkaa qabyaaladii yara lagu riixay sidee baa iyagu isu aaminayeen marka teeda kale maadaama waxyaabo badan xasan ku koobnaayeen xasankeed koobnaayeen hogaamin noocma aynu ka fikirnay runtii qoraaguna wuu carabaabayaa wuu sheegayaa wuxuu leeyahay buuggii uu aadna ku yidhi jeexjeex markii ay daweynaysay haddii buuggaa la hayn lahaa waxaa laga yaabaa in wax badan la ogaada laakiin haddii kale waxaa laga yaabaa in iyagana dembi badan lagu helayo qoorta loo dheerayn lahaa runtii ta aan kusoo gebagabaynay waxa weeye afgembigu maba laga yaabaa inuu ka mid ahaa natiijooyinkii tabnaa ee ka bixitaankii gumaysigu ay u keenay arrimahani gumaysiga joogitaankiisi iyo bixitaankiisiiba dadka aad u leedhaya waxaa ka mid ah nin la odhan jiray Francis Fanon oo runtii ahaa French Afro-Caribbean psychiatrist oo xoog u darsay waxyaalihii uu ka tegay ninkaas ilaa iminka maanta qoran la tixraaca waxaa ka mid ah in gumaystuhu tiirarka uu ku taagan yahay waxaa ka mid ah gacanka hadal oo violence ka bixitaankiisiina violence buu keenay ayuu lahaa ayaa la xidhiidhay marka waxa uu leeyahay weliba qofkii loo yimid ee la gumaysanayay waxa uu doonayo keliya inuu mar keliya kursiga ku fadhiisto inuu isagu xaakim noqdo inuu isagu noqdo hogaamiyihii inuu askarigii noqdo wax walba hataa waxaa laga yaabaa arrimahaana weli maynaan baarin macaradii magacanka hadalkii ayaa keenay runtii gaar ahaan waxaan qabaa burbur badan oo dhacay oo Soomaaliya isku darkii labadii wadan la isku wajiyay Soomaaliya Somaliland intii u dhaxaysay 1900 ilaa 1990 burbur badan oo dhacay runtii inuu la xiriiray waxyaabo badan ay ka mid yihiin heerkii aan taanta runtii marka laga hadlo iyo innaga oo aan u bislayn in aynu gacanka hadalka maarayno dhaqankeennii ahaa iska celida mar walba la tagnay waxaan kaga baxayaa maxaan soo jeedin lahaa buugga ka maqan runtii waxaan tabayaa falanqayn badan inkastoo inay buugga u baahan yahay oo weliba dhinacyaalo badan xaggii weliba critical review in lagu sameeyo oon anigu caawa runtii guud maruna aan halkan ka sameynayay weliba daabacaadda labaad in la doono cilmi baarisna qoto dheer xogihii kale laga soo heli lahaa haddii jaamacadihii adduunyada kale wadamadii sida ingiriiska iyo talyaaniga laga heli karo iyo weliba falanqayn ku saabsan heerkii nolosha bulshada Somaliland iyo Soomaaliya intii u dhaxaysay 1950 iyo 60kii
hadday tahay dhinac diimeed dhinac aqoomeed dhinac dhaqaale dhinac maarayn dhinac hogaamineed in la tixraaco waxyaalaha ugu badan aynu tixraacnaa waxa weeye waa suugaanteenna inagoo welibana war inagu dee waxaanu iska hayn xoolo dhaqato toosan laakiin xoolo dhaqatada laftigeedu hogaamintoodu yacni weli maynaan weelaynin marka in waxyaalo badan lagu xidho ayaan soo jeedin lahaa mar kale waxaan u mahad celinayaa qoraaga buugga Sayid Axmed Dhegey oo runtii 60 sanadood kadib qalinka u qaatay dhacdada manaha shaqo yar waxaana culayska saaray bal horta in wixii laga yidhi waxa laga hayo wixii laga qoray soo koobo una inoo cadaynayo siday u adag tahay qalinkeenna curdinka aana runtii waxyaalaha aynu kaga bixi karno ay ka mid tahay qoraalladan oo kale aad baad mahadsan tahay qoraa cid kastoo akhristaana waxaa laga yaabaa inay dhinac kale ka eegto dhinacyada aan ka eegin dhinacyo ka duwan ka eegto waana runtii buug aan odhan lahaa in markaad akhrida aad waxyaalo badan kala soo dhex baxayso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu